runtii markaan sawir ka bixiyo dhulka horta waxa dhul laga guuray oo laga haajiray oo waxa guriga baloosha loo yaqaano ayuu ah dhul la ilaaway ayuu ah xilliga anaga aan soo noqonay ayaa asaaska waxa soo bilowday wadadan ilaa Boosaaso gasha iyo dekada run ahaantii naf uga horeysay nama jirin waxay ahayd nasri ilaahay subxaanahu wa ta'aala fikti ugu dambeysay dawladdii si aad bare markay si burbureysay ilaa uga soo qaaday deegaanka kuna badbaaday runtii wuxuu ahaa wadankani wadan aan lagu sheegi karin inaba ha yaraatee dal dawlad aan lagu sheegi karin buu ahaa wuxuu ahaa wadan aan ganacsi lahayn wadan inta laga guuro laga tagay aan wax yaala jirin annagu markaan halkan nimin حول ساسي هايين دكدي iyo wadadaas oo xogaa dhaqdhaqaaqi ugu horeeyay oo dadku xataa nafi ku soo gashay ama xogaa shaqaale laga noqdo laga shaqeeyay ama maxaan ku iradaa morally yani dal laga qabanayo inuu yahay ay ahaayeen waa labadaas ay ahaayeen dekada Boosaaso iyo wadada maamulo xataa macallo la sheegi karaa kama jirin waqti aan fogeyna waxay noqotay dawladda laftigeedii inay burbudho waxaan aad iyo aad u xasuustaa dhalinyaradii waxaan noqonay wadada ka shaqo gashay oo ka shaqeynaysay xilli aan isqabanay talyaanigii niman shaqaale ahaa talyaaniga ahaa madax noo ahaa ayaa waxaan xasuustaa ninkii la oran jiray Nursalaad Ilaahay ha u naxariisto waxaan oran karaa wadadaasi gacanta ugu weyn oo inay fusho ayuu ahaa quwadda ugu weyn dhaqaajinaysay ayuu ahaa markaan isqabanay ayuu noo yeeray cidluu nagii wuxuu waryahay anigu hata xamarka imsoo ma ogidin ha habeenkii habeen barbaan kacay waxaan ku ducaystaa ilaahu wadada iyo dekada isu kaya gaarsii idinkuna waa caqabadaynaysaan waa hor istaagaysaan waxa leedihiin saanay tahay annagu markaan waxaan ku doodaynaa dalna loo dhisi maayo ciid aqlalan la saaraya wadada wada caaqibale maaha 10 sano jiri mayso annaguna waa ku baabanayo maxaan ku yiraahdaa dila kuna dhaqaale iyo kama helno tixgelin wuxuu yiri war ma haysan wax aad war haysan lama arko ilaahu mar isu kaya gaarsi baan taaganay anaga xataa markaa ismaanu sii fahmin laakiin dib baan ka fahmnay war dawladdu dhaqsay u burburaysaa wadiiqada gabanta haysu keen gaadho baa warkiisu ahaamo sidii bay noqotay dawladdu waa burbudhay wadankii waa kala xirmay waxa gaban anu runtii wadada markaanu soo xirnay oo wadadii wali iyadoo laga sii shaqeynayo laakiin adigu xoogeedii isgaaray oo ay dhamaatay ayaan walina la soo soconaya laakiin qalaasa badan ay wadanka ka jiraan ayaa waxa degmad laga soo dhigay degmada Danguray marka waa 89 way maamulkii lagu soo magacaabay nin oran jiray Cali Xaaji Ilaahay ha u naxariistay oo leegadii ahaan jiray ragii aad caanka ugu ahaa kaadiriintii dawladda ahaa ragii xisbiga ahaa ayaa gudoomiye looga soo dhigay nin weyn oo ragii maartay muddo soo shaqeeyay la yiri ninkaas waxa soo doortay waliba dadkii maartay bulshada odayaashii baa soo magac waxay yiraahdeen ninka hadna loo ku magacaabo isaga meesha xogaa soo dhisi karo maartay aniguna waxaan noqday ninkii gudoomiye ku xigeenka loogu soo magacaabay dawladdii markii xilliga anigu u shaqeeyayba ilaa 2 jeer baan waxaan rarnay lacag canshuur aan u soo aruurinay oo tuulooyinka degmada maartay coverage-da aan ka soo aruurinay baan xamar u rarnay annagana mushaharada waxaan noo ka soo diri jiray xamar lacagta aan qabanayno oo canshuuraha u qaadayno ku shilin kama aan cuni karin sideedaas aan u gudbin jirnay xogayaha noo jooga wuxuu ahaa reer Qoryooli ayuu ahaa maxaan ku maamul xaq laga soo dhisan buu ahaa waxa dhacday marka goortii ugu dambeysay lacag waxa naloo soo diray 30,000 oo shilin Soomaali ah ya xamar naloo ka soo diray waxa lacagta waxa ku dhisaysan xafiisyadii dawladda iska wax qabsaa lagu dhisayaa lacagtana waxa lagu gadayaa qalabkii materialka lagu dayaa si baan u fulinay iska wax qabsaan ku dhisnay guriyii waa dhisnay ilaa 5 qol oo guri maamulka ah ayaan dhisnay deetana waxa weeye annagoo wali aan qalabkii gadanin ayaa dawladda naga duntay xilliga markii dawladdu duntay
meeshaasi wax ka jiray haba yaraatee ma jirin dagaal sokeeyana waa kuwii bilowday iska daba wareeg bay noqotay iska daba wareega ka bacdi markii ugu horeeyay wax la isku dawaatay gaalka ciyal isugu tagay waxa lagu dhisay maamulkii SSDF magaceeda lagu qaatay oo maxamed abshir madaxda looga dhigay waxaana la sameeyay qaab xogaa si islaami ugu eg oo majlis shuur loo bixiyay mudiir loo bixiyay wasiirada ayaa la sameeyay majlis shuurkaas waxa laga dhigay mid dhexe mid gobol iyo mid degmo heerkii degmada anagu sidayadii baa inta loo ku dhisay baanu sidayadii aniga oday gudoomiye ku xigaan uga noqonay gobolkana waxa la sameeyay degmooyinka gobolka ayaa laga soo saaray markaas ay dooranayeen gudoomiyaha nidaam saas kala loo sameeyay nidaamkaas xogaa muddo yar shaqeeyay laakiin xogaa shaqadiisu shaqo effective oo runtii israacsan ma aanu ahayn laakiin u yaraan waxa dhacday wax la yiraahdo aasaaskii Puntland ayaa halka ka bilowday oo gobolada waqooyi bari markaa ahaa iyadoo hawlaha lagu jiro oo shirarka la wado oo barnaamijka la wado waxa iyaguna dhinac socday oo aan la iska fahmin wadaadadii oo iyaguna xoogooda koonfur ka yimi anaga carratan wadaad ma joogin 3-4 marba la xirxiro baa joog jiray wadaadadii hore iska suufiyada ah baa noo joogay laakiin dhowr dhalinyaro ah oo waliba macallimiinta dugsiga sare u badbadnaa ayaa joogay marba la xirxiri jiray laakiin wadaadada xoogoodu ama deegaanka ha u dhasheen ama deegaanada kale Soomaalida ha ahaadeen waxay nagaga soo guureen koonfur iyagoo ideolojiyadooda iyo waxooda iyo nidaamkooda iyo systemkooda iyo ciidamadooda xambaarsan markay noo yimaadeen halkan yimaadeen maadaama ay dad nidaamsan ahaayeen oo habaysan oo xogaa ma garanaysaa dadku oo diin akhriyayo waa la aaminay waa la soo dhaweey kadib baa loo dhiibay isha dhaqaale kaliya ka jidhay oo gobolada waqooyi bareed oo ay barka jidhay ayaa loo dhiibay waxa la yiri war bal dekada noo qabtay idinkaaba aamin oo niman fiican halkaas ku baraareen isku diyaariyeen ku dhismeen maaskaraad ku samaysteen dhaqaale badan ka heleen markii dambena waa kuwii isku dayay inay qabsadaan goboladii waqooyi bari barnaamijka marka ay ku qabsanayeen sida aan mar dambe aan ku helay akhbaarta ku helay oo rag yani ka tirsanaan jiray aan arkay oo xawaashada wuxuu isku xirnaa ilaa iyo koonfur buu isku xirnaa xataa waxa jiray barnaamij ciidan in xataa meesha marka laga soo raro ayaanta dagaalkan ay gurmud u soo noqdaan oo laakiin siya kale markii dambe ku baaqday waa sheeko dheer oo hadda la geli karo waxa dhacday markaa dadkani markaa waxay ahaayeen dad iska shacaba xoogaagii maartay markii hore la ururiyo ciidan ama maxaan ku yiraahdaa halkii ahaana de waa kuwii maartay halkaan oo dawladda shacabku dirirayo jamhadii dagaalo ka dhaceeno furin bay jireen xoogoodii nimankii wadaadada ahaa ee la aaminay ee dekada loo dhiibtay ee runtii maxaan ku yiraahdaa hanka weyn loo qabayna iyaguna barnaamij kale ay wateen runtii oo iyaga laftooda xataa ay ku midaysnayn waxaan ka warqabaa anigu inaanay ku midaysnayn oo meeshan wax way xarakay ahaayeen ama urur runtii siyaasi diini ah bay ahaayeen oo la yiraahdo itixaad markiisuna ka soo jeeday laba urur isku biiray oo wuxdadii waqooyiga iyo jamaacatul islaam la oran jiray koonfurta isku biiray bay ahaayeen itixaad baa la isku bixiyay rag culimada ha waaweynaa oo asmaasinta rag asaasay oo barnaamijka ka dambeeyay rag dhalinyaro ah oo ciidamada u badnaa saraakiil ciidan u badnaa ayaa kala hoos baxay marka waxay noqdeen wax la yiraahdo xaraka taxta xaraka yani urur ka hoos samaysan ayay noqdeen barnaamijkaas meeshii ka dhacay ee dawaatii la ogaa wixii ka dhacay waa tii weerarku bilowday waa tii odayaashii mar la qabsaday waa tii dagaaladu dhaceen waa tii maxaan kale la iscaarsaday waa tii saliid la isla galay waa tii dhibaato ka dhacday